saaka ay ahayd markii maxkamadda gobolka Sanaag ay xabsiga u taxaabtay xubno ka tirsan dawladda hoose ee magaalada Ceerigaabo xubnahaasi oo ugu horeeyay xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Ceerigaabo Saciid Cumar Caabi iyo qaar ka mid ah saraakiisha waaxaha dhulka ee dawladda hoose ee magaalada Ceerigaabo sida ila xoggaalahayn oo xaqiijiyeen xubnahan dawladda hoose ayaa xarigoodu daaranaa inay soo cadeyn kari waayeen cidda mulkiyadiisa la dhul beera oo ku yaala duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo kaasi oo ay ku muransanaayeen tiraba 3 hantiile oo uu midba gaarkiisa mulkiyada lahaanshaha uga haysto dawladda hoose ee magaalada Ceerigaabo xubnahan ka tirsan dawladda hoose ayaa markii saaka maxkamadda gobolka ay xarigooda amartay kadib waxa loo ogolaaday in damiin lagu sii daayo waxaana arintaasi ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Sidiiq Xaaji waxaweyaan arinta maxay haytooyeen xubnaha dawladda hoose saaka la soo xidhay waxaweyaan baaris socotay muddo adigu 8 bilood ayaa baaristaas baa lagu soo xidhay waa arimo dhul weeye waa arin dhul waxaweyaan baaristii baa lagu soo xidhay haddana maxay haytooyeen damaanad baanu ku bixinay xubnahaas in dacwadoodana maxay haytooy ay socoto damaanadana ay ku jiraan marka waxa weeyaan hadii dembi lagu helana waxa weeyaan waa maxay tahay wala soo bandhigi hadii lagu waayana waxa weeyaan waxay helayaan xorriyadooda helayaan geesta kalena mid ka mid ah hantiilayaasha mulkiyadiisa sheeganaya dhulkaasi la isku haysto oo lagu magacaabo Yaasiin Abokor ayaa waxa uu sheegay in dhulkaasi uu isagu xaq u leeyahay balse ay niman kale mulkiyado si sharci darro ah ugu sameysay buu yiri dawladda hoose ee magaalada Ceerigaabo taasina ay ka dambeysay xarigan mas'uuliyiinta dawladda hoose Mr Abokor arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaan ahay Yaasiin Abokor Cabdi waxaan ahay ninka beertan hadda mushkiladu ka taagneyd muddo dheer oo 7 bilood ah isagoo iskale mulkiilaha beertaale baan ahaa waxaan joogay dabatana markii ay wadada Ceerigaabo bilaabantay oo ay dhexdhexaadka marayso oo ay ahayd mucjiso ayaa waxa dhacday in aniguna isiri magaalada Ceerigaabo wax ka bedel markaan magaaladii imi waxa aniga wax iga bedelay dawladda hoose waxaan arkay beertii aan lahaa oo la googoostay oo nin walba in xidhay oo ka waraabayaan leeyihiin oo ka libaaxyo dhex fadhiyaan oo mid kasta uu inuu leeyahay sheeganayo markii aan imi oo documentkaygi iyo waxaygii oo wada dhan waxaan markaa damcay markaan arkay maxkamad lagu wada kalsoon yahay oo daacad ah oo aan ku kalsoonaan karo isla dacwadaada waxbay ka qaban karaysaa ayaan dacwadeeda bilaabay markii aan bilaabay oo documentkayga oo dhan oo maqraatiyaal jiraan oo wax alla wax iga dhimanaan jiray maxkamadiina ay xukuntay ayaa waxa dhacday markii nimankii lagu soo ay dhameyn waayeen muddo 4 bilood laga cadeyn inay ka soo qoraan dhulka cadda iska leeyahay kanaale iyo kana ay noqotay sheekada mid walba warqad gaar ah haysto oo wada cadaana oo waxaas ay yihiin been abuur ayaa waxa dhacday markii la keenay maxkamadda oo la xiray gudahana lagu riday ay noqotay marka in lagu soo daayo wajiyaal kale oo ah kii dadka oo dhami ay islahaayeen waxa ka dhacaysa wadanka nabadgelyo iyo wax lagu kasoo yahay xaalad abuur bay iyagii bilaabeen marka waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa reer in waxayga iga qaaday oo iga dhacay waxa la xiray xogayii dawladda hoose waxa la xiray joomitarkii waxa la xiray xafiiskii dhulka waxa la xiray intii ku shaqo lahayd tuuganimada oo Ceerigaabo sida u dhantahay ay maqnaad ka wada tahay marka waxa weeye mas'uulkii gudoomiyaha degmada ka ahaa inuu isagu dambiga isagu arkayo oo aanu uga dacwoonay muddo badan aragti wanaagsan uu garanayo in khalad la galay ay tahay uu markii la xirxiray oo sharciga sidii ahaa la mariyay inuu isagii tago jeelka oo soo daayo oo suuqa ku sii daayo waxa weeyaan taasina waa waxa loo dulqaadan karin waa waxaan la filayn isku dhacna keenaysa maayarkaas oo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halku dhexdhexaadka ka aan lahaa dhinaca saaray tuugtii waxa meeshan jirta dawladda hoose oo ah mid aan la garanayn meel ka iyadoo ay moodo in iyadu dawlad tahay oo si Allah habrihi masaakiinta ahaa oo guryahoodii la wada qaatay laga iibiyay cidna aan loo joojinaynin dadka lagu wada dheegagayo oo isagoo qofku daalan oo ay nafti ka baxdo ka noqonayo marka waxa weeye kiiska isaga ah oo aan anigu leeyahay oo Ceerigaabo dhamawada ogtahay oo dawladda ogtahay oo lay wada og yahay waxa weeye arinta nimanka la xirxiray la soo daayay haday noqoto in ay noqoto marka ay shakhsiyaad ku shaqeystaan oo meesha dawladdiiba amarba laga qaadanaynin marka waxa weeye waxa ka dhaca waxa ka mas'uula dawladda hoose ويونس شيخ أحمد Universal TV Ceerigaabo